Halkani waa dunida meediya daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta arrimaha siyaasadda oo alaba ka daawataan dunida meediya. Haddii ay tahay marka kugu horeysa daawada, waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saarto, sidoo kale gambaleelka aad furato si uu kusoo gaaro muuqaal walba oo aan halkan kusoo gudbino. Waxaan barnaamijkeena maanta kaga hadli doonaa ama aan ku falanqeyn doonaa madaxweyne xasan sheikh oo dib ugu soo celiyay darajadiisii Generaal Cabdalla, maamul goboleedyada Soomaaliya oo xiriirka u jiray wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, qaramada midoobay iyo wasaaradda gaashaandhigga oo ka wada hadlay iskaashiga labada dhinac, wasiirka caafimaadka oo kulan la yeeshay safiirka UK. qodobadaas ayaan kaga hadli doonaa daawada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa xeer madaxweyne dib ugu soo celiyay Saraakiil Guuta Cabdalla Maxamed dhammaan darajooyinkii iyo xuquuqdii ciidan ee uu ku lahaa hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka si waafaqsan qodobada 87 iyo 90 ee dastuurka ku-meelgaarka ah. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ku saleeyay xeerkan madaxweyne sharciga dhismaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee 14 sano baxay sanadkii 1970. codsi uu soo gudbiyay Saraakiil Guuta Cabdalla Maxamed iyo muhiimadda ay leedahay in dib loo soo celiyo xuquuqdii iyo darajooyinkii ciidan si waafaqsan dastuurka iyo sharciga dalka. Saraakiil Guuta Cabdalla Maxamed laga bilaabo maanta oo aan saxiixay xeerkan madaxweyne waxa uu xaq u yeelanayaa dhammaan xuquuqda ciidan ee sharciga u ogolaanayo. Wasaaradaha maaliyadaha ee 5 dowlad goboleed ee xubnaha ka ah dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa xiriirka u jiray wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda dhexe ee Soomaaliya. warqad ay ku wada saxiixan yihiin wasiirada maaliyadaha ee 5 dowlad goboleed ee kala ah Puntland, Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ayaa lagu faafiyay baraha bulshada. Warqadaasi waxaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta ay joojiyeen wada shaqeyntii kala dhaxaysay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya, taasoo ay ku eedeeyeen baalmarista heshiis hore inta ay wasaaraddu ku soo laabanaysa xindaabka sharci. Waxay tixraac ahaan u soo taxeen heshiisyo wadar-tashi iyo wadar ogol ay ku tilmaameen oo ay horey ugala gaareen wasaaradda, kuwaasi oo kala ahaa heshiiskii Addis Ababa ee Sebtembar 2019, heshiiskii Kismaayo ee Novembar 2019, heshiiskii Kampala ee Diseembar 2019 iyo weliba heshiiskii Nairobi ee January 2020 iyo heshiiskii Muqdisho ee Agoosto 2020. Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa shalay xarunta wasaaradda gaashaandhigga kulan kula qaatay ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Anita Kiki. Wasiir Cabduqaadir Maxamed Nuur iyo Anita Kiki ayaa waxay kulankooda uga wada hadleen xoojinta wada shaqeynta wasaaradaha gaashaandhigga ee qaramada midoobay. Sidoo kale waxay ka wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaa fulinta qorshayaasha hortabinta u leh wasaaradda gaashaandhigga. Kulanka waxaa ku sugnaa agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga iyo la taliyayaal ka tirsan xafiiska wasiirka. Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa kulan la qaatay danjiraha boqortooyada Ingiriiska iyo koox ka socotay xafiiska arrimaha dibadda, barwaaqa sooranka iyo horumarinta FCDO ee safaaradda Ingiriiska. Danjire Carter Foster, safiirka dowladda Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya, ayaa wasiirka iyo mas'uuliyiinta kale ee la socotay si diiran u soo dhaweeyay kagana warbixiyay xiriirka iyo wada shaqeynta ballaaran ee wasaaradda iyo safaaradda ka dhexeysa. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay sidii loo cusboonaysiin lahaa ballanqaadkoodii ku aadanaa iskaashiga horumarinta qaybta caafimaadka, waxayna isla garteen ka wada shaqeynta hanaanka ay dowladda u hogaaminaysa ee ah hirgelinta barnaamijka Better Lives oo ay maalgeliso FCDO iyo in la hubiyo maalgelinta UK ee la jaanqaado mudnaanta dowladda si bulshada loo gaarsiiyo xirmo isku dhafsan oo muhiim u ah adeegyada caafimaadka iyo xoojinta nidaamyada maamulka caafimaadka ee mudnaanta leh si ay isku kabaan mashaariicda horumarineed ee kale oo ay maalgeliyaan hay-adaha kale ee horumarinta kala shaqeeya wasaaradda sida Bankiga Adduunka. Wasiirka caafimaadka ayaa ugu mahadceliyay sida joogtada ah ay dowladda UK uga go'an tahay taageerada ay ku bixinayaan iyo dadaalka ku aadan wax ka qabashada masiibada COVID-19 iyo abaaraha socda ee saameeyay in ka badan 7 milyan oo Soomaali ah ilaa iyo hadda. Dowladda boqortooyada Ingiriiska waxay gacan ka geysatay qaabeynta iyo horumarinta xirmada aasaasiga ah ee adeegyada caafimaadka oo ah qaab dhismeedka qaran ee habeynta, maareynta iyo bixinta adeegyo daryeel caafimaadka aasaasiga ah ee dalka.
wasaaradda waxaa ka go'an xal u helidda baahiyaha dhanka caafimaadka. Daawadayaal, guud ahaan intaas ayaan kusoo afmarayaa barnaamijkeena falanqeynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawanayseen Dunida Media. Haddii ay tahay daawada marka kugu horeysay channelka, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto, sidoo kale gambaleelka aad furato si uu kuu soo gaaro muuqaal walba oo aan halkan kusoo gudbino, una sii sheergaray saaxiibadaada jecel inay wax ka ogaadaan siyaasadda dalka iyo weliba tan guud ahaan caalamka. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani. Mahadsanid.